wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdisalaan Cali ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Danjire Muuse Jaamac Cali ergeyga gaarka ee igad u qaabilsan Koonfurta Suudaan kulankaas oo ay uga wada hadleen xoojinta nabadda iyo iskaashiga amniga ergeyga gaarka ee igad u qaabilsan Koonfurta Suudaan ayaa ugu hambaliyay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya doorashadeedii kursiga golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika isagoo sidoo kale ku amaanay doorka ee Soomaaliya ka qaadanayso horumarinta nabadda iyo amniga qaaradda Afrika iyo taageerada ay siiso xasiloonida iyo kobaca dhaqaale ee Koonfurta Suudaan iyada oo loo marayo xubinnimada wadajirka ah ee ururka bulshada bariga Afrika. Wasiir Cabdisalaan ayaa adkeeyay ka go'naanshaha Soomaaliya ee ku aadan nabadda gobolka iyo tarqaaradda wuxuuna ballan qaaday in la xoojin doono wada shaqaynta iyo isku duwidda igad iyo la howlgalayaasha gobolka.